أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم waxaan waxyar ka sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhallinyaradii rasuulku uu tarbiyeeyey ama madaaristii rasuulka ka soo qalin jabiyey iyo kuwa ka soo baxay jaamacaadka reer galbeedka ama dhulka reer galbeedka ku tarbiyoobay ama afkaarta ay xambaarsan tahay xadaaradda reer Yurub dhallinyaradii qaadatay farqa u dhaxeeya ayaan waxyar ka sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dad badan oo dhallinyaro ah oo maanta nool aqoon la'aantii ku dhacday oo ay gara waayeen islaamkii ilaahay siiyey ilaahayna uu ku manaystay markay gara waayeen in badan oo ka midana ay jaamacaadka reer galbeedka ka soo qalin jabiyeen markay gelayeenna aysan ahayn kuwa diintooda islaamka yaqaana waxay taasu sababtay marka inay islaamkoodii jahli ka noqdaan inay markaa islaamka u arkaan wax takhallufa oo dibdhac ah oo aan noloshan maanta la soco karin mudan yahana islaamku inuu masaajidada iyo meelaha lagu cibaadaysto uu iska joogo uusan ka soo bixin siyaasadda iyo hoggaanka ummaddana uusan shaqo ku lahayn waxyar baan marka oo kooban labadaa qolo ayaan ka sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaana aad isugu dayayaa wakhtiga inaan koobo markaan ka sheekeeyo adiga daawad doona ama dhegaysa doona ayaa lagaa rabaa marka inaad garsoor samayso waa taariikh horan oo aanan rabitaan iyo nacitaan aanan ku salaynayn laakiin xaqaa'iq cilmiya oo kutubta iyo muxuu ahaa meel walba ku qoran yaan soo bandhigaya haddii ilaahay yidhaahdo dhallinyaronimadu waa wax qiimo badan markaan ereygaas dadka waxyar dareensiiyo waxaana la yidhaahdaa dhallinyaronimadu waxaa lagu mithaalay lafdhabarka bini aadamka uu ku fadhiisto laftan dheer oo la yidhaahdo lafdhabarka oo bini aadankaba isku celisa oo qofka hadduu ay wax ka gaaraan inuu socdoba uu gabayo ayay dhallinyaradu la mid yihiin baa la yidhi waxa kaloo dhallinyaradu ay yihiin mustaqbalka ummadna walaalayaal waxaa lagu qiimeeyaa dhallinyaronimadoodu sida ay u nool yihiin iyo meeshay u socdaan hadday ummad xagga horumarka u socda yihiin dhallinyaradu ama lagu tarbiyeynayo ama ummaddaas ay dhallinyaradooda ka fekerayaan ummaddaasi badbaado iyo horumar baa loo rajaynayaa hadday sidii soomaalidu inta badan hadda ay dhallinyaradooda ku sugan yihiinna ay dayacmaanna ummaddaasi mustaqbalkoodu mugdi weyn ayuu ku jiraa waayo dhallinyaradu waa odayaasha hadda nool dadkii bedeli lahaa marka aan u laabto hadalkayga ahaa dhallinyaradii rasuulku tarbiyeeyey oo jaamacaadkii rasuulka iyo madaaristiisii ka soo baxay ama ka soo qalin jabiyey aad bay u fara badnaayeen haddaan si dadku fahmi karaan u sheego waa asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa jiilka ugu horreeyey oo diintan xambaaray marka aad taariikhdooda aad u akhriso bani aadamku waxaad leedahay waxaan wax suuragala maaha bani aadan ma sidaan ayaa awooddiisu bani aadanku uu yahay iyo qiimaha iyo dadnimaday lahaayeen dhinac walba ayaa rasuulku ka tarbiyeeyey rasuulka tarbiyadiisa intaana gudagelin carab bay u badnaayeen shabaabkaasi diinta qaatay oo maaragtay jasiiratul carab ku noolaa marka waxay qabla alislaam ahaayeen dhallinyarada carbeed kuwa dagaalada ku hoobta kuwa furus dowladdii bershiyaanka iyo roomaanka ku hoos jira ayay ahaayeen kuwa qabiil isu dila ayay ahaayeen kuwa aan taariikhda wax qiimaha aan ku lahayn bay ahaayeen kuwa waxay aan waxba qorin waxna akhrin nin alla ninkii yimaadana fikirka uu doono uu ka dhaadhiciyo dagaallo waxay geli jireen 40 sano soconaya oo maalaayacniya oy ku baaba'aan marka waxay ahaayeen kuwa khamri cabiddu iyo macaasida kale iyo wax kasta oo xumaan ah ay kala weyn tahay waxyaabaha wanaagsan qiyam iyo akhlaaq ma aysan lahayn dhallinyaradii carbeed oo qabla islaam noolaa waxay ahaayeen kuwa wax kasta ka baqa oo aan isku kalsoonaan ayay ahaayeen
qabiilka iyo qabaliyadu kuwa ay dilootay ayay ahaayeen taariikhda aan wax boosa ku lahayn waan ka gudbayaa sidii aanan muxuu ahaa waqtigu uusan igu ciriiriyoobin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad buu u tarbiyeeyey waxa uu ku tarbiyeeyeyna waxay ahaayeen qur'aan alla subxaanahu wa tacaala uu u soo dhiibay iyo waxyi ilaahay ayuu ku tarbiyeeyey sidaa ayayna iyaguna u qaateen wax la soo koobi karana ma aha wax halkan lagaga faallay karana ma aha waa wax khaariqo caado ah oo bani aadamku uu la yaabay marka laga sheekeeyo akhwaani marka waxay ahaayeen markay islaamka qaateen labadii dowladood oo adduunku markaa ugu waaweynaa oo la dhihi dowlatul furus ama bershian ama dowladdii roomaanka dagaal bay la galeen 25 sannadood ayay labada imbaraadoriyood ama labada dowladood ugu waaweynaa adduunka ayay ku soo afjareen dhammaantood ay kaga takhaluseen dagaal wuxuu ka bilowday dhulka Ciraaq hadda la yiraahdo oo ay nimankan furus ay haysteen boqolaal sano dagaal kalena wuxuu ka bilowday dhulkan hadda la yiraahdo maaragtay Shaam iyo wixii ka sokeeya oo ay Roomaanku haysteen carabtu laba qabiil laba dowladood yar bay lahaayeen oo dowladina waxay hoos galay sida maamul goboleedka oo kale furuska dowladna waxay hoos joogtay Roomaanka korna Roomaanka iyo furuska ayaa ka haystay marka carab oo dhan ba waxay ahaayeen kuwa aanan wax qiimo lahaynba sida islaamku uu ka faaleeyay wax badanna kutubta siyirka iyo taariikhda lagu sheegay dhalinyaradii marka rasuulku tarbiyeeyay markay dagaalka la galeen labadii dowladood dowladii furus markii la qabsaday magaalada Madaa'in la yiraahdo oo caasimadda ahayd boqorkii la dhihi jiray Yazdajir oo boqorkii furus wuxuu u qaylo dhaansaday oo uu gargaar weydiistay boqorkii Jaynaha oo marka boqor weyn ahaa markaas wuxuu yiri ciidan nimankan xukunkeyga bal inta ka hartay wax yar baa marka u sii haray laakiin magaalada caasimadda waa la qabsaday ciidan ii soo diru yiri iyo gargaar markii boqorkii Yazdajir uu warqada u qoray boqorkii Jaynaha ninkii warqada waday markuu u tagay boqorkii Jaynaha wuxuu ku yiri arrintii boqorkii furus uu u sheegay boqorkii Shiinaha su'aal buu weydiiyay marka ninkii warqada waday nimankan idin la dagaalamaya ballanta ma oofiyaan buu yiri nacam waa dad ballan la ayuu yiri intaysan idin la dagaalamin maxay idinku yiraahdaan wuxuu yiri waxay noogu yeeraan saddex inaan muslimno oo aan walaalahood noqonno oo xaqa aan helayno kala aad heshaan bayna yiraahdaan inaad diidaan oo jisiye idinka qaadno oo islaamka hoostiisa aad ku noolaataan iyo inaad idin weerarno saddexda waxaan haynba ma yiraahdaan uu yiri gorgortan kama galaan sidee marka wuxuu kaloo boqorkii Jaynaha yiri ninkii madaxdooda iyo dadka iyaga u tali siday u adeecaan wax qof bini aadan boqor bini aadan sida loo adeeco midka ugu daran bay u adeecaan buu yiri si aanan laga falay karin bay u adeecaan buu yiri halin warka uu yiraahdo way ku wada go'aan kan ugu yar warka uu soo qaado dhamaantood ma khilaafaan buu yiri bal eega akhlaaqada islaamku uu baray iyo khadamaad oo carabta fawdada ahayd oo loo taag waayay oo qabiilka isu dilaysay bal sida nabiga calayhi wasalaam uu isugu toosiyay u tarbiyay wuxuu kaloo boqorkii Jaynaha weydiiyay waxa xalaash ahan xalaal ma ka dhigtaan xaraamtan xaraam ma ka dhigtaan nacam baa la yiri wixii xalaalan xalaal bay ka dhigtaan wixii xaraamtana way ka fogaadaan baa la yiri marka inta uu akhriyay uu sheegay wuxuu yiri wallahi qolada aad sheegaysid buu yiri in la dagaalamo oo aan ciidan iyo idan si iska dhaafe hadday xataa buuraha ku soo aadaan buu yiri buuruhuba waa dhalaalayaan waa burburinayaan meel alla meeshii ku soo aadaan wax celi kara lama arka xataa buuraha hadii ku soo aadaan buu yiri buuruhu way burburayaan buu yiri oo macnaha burbur iyo waxa ku dhacayo yiri kala iyo wuxuu yiri iyo inay tajabaan buu yiri anigu waxaan idin sii karaa ciidan caaradkiisu uu magaalada Nahawanda meesha la yiraahdo oo dhulkii marka furus ahayd uu joogo meesha ugu horeey
ka ugu dambeeyana dhulkayga uu joogo tiro intaa la eg dhulka ama annaga iyo adinka idin dhexay ciidan aan ka buuxin karaa laakiin nimankaasi niman dagaal wax looga qaadaya ma ahani nimanka intaasoo tilmaamood leh la heshiiya ayuu yidhi oo muxuu ahaa ha la dagaalaminina haddaysan adigu dagaalka ay idinka daayaanna ka daaya ayuu yidhi oo dagaal waxba uga qaadi maysaan ikhwaani marka waxaan haddii ilaahay yidhaahdo ku xijin doonaa anigoo si musalsala uga sheekay doona taariikhdii saxaabigii khaalid ibn ulwaliid sacd bin abi waqaas cali bin abi daalib iyo raggii ka dambeeyey oo ay ka mid ahaayeen qutayba ibnu muslim iyo raggii ka sii dambeeyey oo islaamku iyo diinta islaamka ay tarbiyaysay oo ay asxaabta ugu horrayso intaa ayaan hadalkayga ku soo koobayaa waana si musalsal ayaan u sheegi doonaa markaan dhammeeyo raggii rasuulku tarbiyeeyey ama madarasadii rasuulka ka qalin jebiyey ama madarasadii islaamka ka soo baxay waxaan ku xijin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kuwii madaarista reer galbeedka wax ku bartay ama xadaaradda reer galbeedku ay tarbiyaysay oo hadda jooga iyo faraqa bal u dhaxeeya markaas yaan marka arki doonaa hadalkayga intaa ayaan ku soo koobaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أسوار تصدر واسألوا قصر المدى